waxaanu wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warbaahinta Baraawe qodobada maanta warka Baraawe news ugu doorka roon waxa kamid ah daawadayaal madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa dalka Faransiiska digniin kama dambaysa u diray xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo wuxuu joogaa dalkaas Estory magaalada Vienna isoo dhigiisa xogayaha arrimaha dibadda dalkaas kula kulmay magaalada Vienna dalalka Israa'iil iyo Imaaraadkana xiriir ayaa u bilowday intaas in kala Baraawe news oo faahfaahsan daawadayaal ku soo dhawaada waa maalin sabti taariikhda ay ku beegantahay 15 bisha Agost 2020 aan ku bilawnay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa dalkaas Faransiiska digniin kama dambaysa u diray madaxweynaha Erdogan ayaa u sheegay in dalka Turkigu uusan ahayn dal la handadi karo asoo sheegay madaxweynaha dalkaas Faransiiska Emmanuel Macron inay Turkigu ay u diyaarsan yihiin dhan kastaba ka diyaarsan yihiin madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay inuusan dalkiisu ka gaabsan doonin baddaas Mediterranean-ka kheyraadka ay dawladdiisu ay ka baarayso wasaaradda gaashaandhigga dalkaas Turkiga barta Twitter-keeda waxay soo dhigtay markabka shidaalka ka baaray halkaas 6 markab oo dagaal iyo dooman dheereeya ay ilaalinayaan wasiirka difaaca dalkaas Turkiga Hulusi Akar ayaa suguna uga digay dalalka amba dadka danaynaya baddaas Mediterranean-ka amba doodsiinaya xaquuqda dalka Turkiga ku leeyahay ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mawlid Jawish Oglo asaguna wuxuu sheegay inay dalka Faransiiska ay dalka Ciraaq iyo Syria Libiya ay uga soo adkaadeen haddana isla joogaan badda Mediterranean-ka sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda dalka Turkiga Mawlid Jawish Oglo oo warbaahinta kula hadlay dalka Turkiga xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo asaguna wuxuu booqanayaa magaaladaas Vienna ee dalka Estory soo dhigiisa wasiirka arrimaha dibadda dalkaas kula kulmay xogayaha arrimaha dibadda ayaa isku dayay inuu dalalka gaashaanbuurta NATO oo halkaas dhoolatuska ku sameynayo kala dhex galo asoo dhinaca diblomaasiyadda dadaal xooggan ka wada ayaa lagu waramayaa xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa dadaalla aad u badan wada sida uu kala qaba lahay dalalka gaashaanbuurta NATO isku wada jira Mr Pompeo ayaa gobolkaas ku marmaraya socodkiisa dhinaca diblomaasiyadda uga doonaya dalalkaas in la kala qaboojiyo iyadoo horey ay dalalka Masar iyo dalkaas Greek ay heshiis dhinaca badda ay gaareen balse uu ka xanaaqay madaxweynaha dalka Turkiga madaxweyne Erdogan ayaa amar ku bixiyay waaxda dhinaca shidaalka ama maraakiibta shidaalka ka baaraysay gacankaas inuu si degdeg ah u tagaan ay u bilaabaan shaqadoodii madaxweynaha dalka Mareykankana dhanbaa lagu diray madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad waxaa lagu soo waray Bashar al-Assad madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu ka codsaday wariyay la sanadkii 2012 lagu waayay dalkaas oo madaxweynaha Mareykanku uu ka codsaday soo sheegay madaxweyne Donald Trump waraqada ku sheegay inuu Mareykanka iyo Bashar al-Assad ay u bilaabo karo heshiis hadii uu danaha amba wuxuu Mareykanku doonayo uu sameeyo dalalka Imaaraadka iyo Israa'iilna iyaguna heshiis ayaa dhex maray idoo ganacsiga amba socodka sida lagu soo waramayo amba dhinaca diblomaasiyadda safaaradaha labada wadan Abu Dhabi iyo Tel Aviv laga furi doono iyadoo dalal aad u badan ay ka ficil celiyeen dadka reer Falastiin ay ku tilmaameen inay Imaaraadku ay gadayaan dadkooda iyo dhulkoodaba madaxweynaha Turkiga ayaa hore u sheegay inuu dalka Sacuudi Carabiya uu ka mas'uul yahay dalalka Islaamka oo safka ugu jira in Israa'iil ay wada cararaan daawadayaal warkayna caalamka Baraawe news intaas ayuu ku ogyahay dhinaca farsamada waxaa noo fadhiya injineer Sakiyan Cabdiraxmaan warka ayaan la socodsiinayay faafinta warka waa xaqiina sidaas iyo nabadiino daawadayaal